madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu booqday goobtan oo ah halkii shalay ay kooxda nabadiidku ku gumaadeen shacabka reer Muqdisho waxa isbedelay dhammaanba muuqaalka isgoyskan oo ahaa meel aad u mashquul badan waxa uu la hadlay madaxweynuhu qaar kamid ah dadka halkan isugu yimid oo ah kuwa ku waayay ehelkoodii hantidoodii iyo kuwa wali raadinaya caruurtoodii walaalahood iyo waalidiintood oo aan ahayn nolol iyo geeri meel ay ku dambeeyaan الله تداوى على الله شرعي ومصيبة قرنوة مصيبة كنت نقولها بستي وأنا أركتان ولدنا بديتك شبابك وحي لدى قال عين بيوت شخص ما وحي لدى قال وشعب الصومالي وكل جي وحي لدى قال ضدك محيق لبسين ماشي هذا وكبطية وطلع محيق لبسين ضدك محاولة تاني وانت أصلك محاولة تاني خطر الله ويستحوي لكن هو ما قلق صار هلا هاي هويين هلا هاي أربوين عروق هنا هايين بعدين هو حوي أنا هو مستعجل أنا سكعل منه هذا كان هرر كعب هو مدينا ماله القصان الله سكعل الله نحرس تيجي دمتي أنا تقال قوة إن شاء الله تقال قوة لكن waxaa loo baahan yahay kulligan inaan u istaagno dagaalkan dawlad kaliya ma aha shakhsina ma aha dagaalkan waa dagaal ku socda ummadda Soomaaliyeed guud ahaan dadweynaha Soomaaliyeed ku socda haddaan loo istaagin oo fadhiga laga kicin musiibada waa nagu soconaysaa halkan waa isgoyskii Sooba oo kamid ah isgoysyada ugu mashquulka badan magaalada Muqdisho sida u jeedaan waxa aad u burbursan daara badan halkan aad u jeedaan waa goobtii gaarigu u marayay ee ku qarxay waxaad u jeedaan biyo meel war ah ayaa runtii ka samaysantay oo aad dareemi kartaan in waxa dhacay ay yihiin wax aad u weyn goobahan ayaa ah kuwii ganacsiga oo ilaa hadda waxa ay muuqda in la baadi goobayo dadkii ganacsatada ahaa oo runtii inta badan qaarkood meedadkooda la yahay nololna lagu laayahay eheladoodii ayaa wali gaaf wareegaya oo runtii raadinaya dadkaas bal inay helaan rag iyo ruux meel ay ku dambeeyaan madaxweynaha ayaa booqday isbitaalada ay ku jiraan dhaawacii ka dhashay weerarkan ay al-shabaab ku xasuuqeen muwaadiniintan aan waxba galabsan waxa madaxweyne Farmaajo u duceeyay dhaawacyadan idin muuqda ay ku jiraan caruur haween waayeelo qaarkood ay ka muuqdaan jirkooda gubasho iyo kuwa lixaadkoodiiba ku waayay waxa madaxweynuhu uu booqday qaybta kaydinta dhiigga ee isbitaalkan Ordugan loo yaqaan Digfeer halkaas uu dhiigga ugu bixiyay muwaadiniinta ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay Muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa sheegay in xasuuqa ay kooxdani u geysanayso shacabka aanay marnaba ka leexi doonin dawladda Soomaaliya hadafkeedii ahaa in al-shabaab ay meesha ka saarto shacabka Soomaaliyeedna ay nabad ku noolaadaan wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan ku raahdaa hooyooyina aabooyina walaalo ah iyo ahaayeen oo Soomaaliyeed oo waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay in sha Allah ummadda Soomaaliyeed waxay ka baranaysaa ma aha inay baqdin geliso waxaan ka qaadanaa geesinimo waxaan ka qaadanaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iskaga qabanno aan u cirib tarno haddii Ilaahay yiraahdo dhalinyarada waxaan leeyahay dalkan idinka iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo la leynayo waa hooyooyinkiin waa aabayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidayo waa dawladdiina weey waxa horumarka loo diidayo waa mustaqbalkiina marka waxaan leeyahay dhalinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dawladda u shaqeeya ma aha Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho